gabadhan waxay awood leedahay wajigeeda mar bunuc inay ka dhigto adigana daawada ilaa in muuqaalka like noo saarto gabadhan ayaa markaa waxay ugaarsanaysaa nin ku sawiran sawirkaasi kadibna waxay ka arkaysaa meel dheer weliba isagoo wata kalluunkan yar markaasay gabadha waxay bilaabaysaa ninka inay soo daba kacdo welibana iyadoo hal mar la arkaynin iyadii oo idilba si habile ay camal ay u soo cararaysaa kadibna meeshuu isaga joogay ay imaanaysaa ninkan wuxuu keenay kalluunkan weliba si uu u gato halkan uu keenay laakiin kalluunkii hal mar isbedelay oo weynaanaya ninka keenay ayuu hal mar liqaya kaloo keenna uu qeelinaya dadka kale meesha jooga idil ayagana way kala cararayaan sidoo kale kalluunka wuxuu liqayaa ninka laga gadan rabay gabadhana meeshaas ay fadhida oo way daawanaysaa oo keliya sababta hore ninkaas ay ugaarsanaysa iyada markaas xariifka imaanaya si uu badbaadiyo ninkaasi kale kadibna wuxuu la dagaalaya kalluunka laakiin xariifadii hamar soo boodaysa iyadoo weliba kalluunka qabanaysa wiilkan indhaha ayuu ku daabanaya wuxuu la yaabaya wuxuu sameynaysa habeenaydan ayaa sixirka aad iyo aad ugu wanaagsan wiilkan uu la yaabaya waxay sameynaysa kadibna kalluunku xanaaqa oo habeenadan uu kala tuuraya dibna meesha dagaal weyn ayaa ka dhacay weliba iyagoo is dagaalan habeenayda iyo kalluunka doona kalluunka saxool oo garaac sababta kalluunka markiisa sida muusanin iyada ayaa markaas waxay sameynaysa waxyaabo sixir oo cajiib ah dadku meesha jooga idil maantooda is wada bedelaan oo caadi ay noqonaan kadibna iyada nin ay isku bedelaysaa markaas ay soo baxay ama soo baxaysa ayagoo weliba meeshan imaanaya halkan ay imaanaya weliba isigoo soo qabtay sawirka qofka loo dirayay habeenaydan kale iyada wax walba ay ogtahay ninkan uu sameynayay igana daawadaha ilaawin muuqaalkana like noo saarto